maaliyadda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya oo sheegay in cudurka COVID-19 uu saameeyay dhaqaalaha dalka. dowladda Soomaaliya oo xoojinaysa goobaha lagu qabanayo imtixaanaadka iyadoo diyaarisay ku dhawaad 2,000 oo ciidanka booliska ah. akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mid noqonaya Mareykanka oo cunaqabateyn ku soo rogay saraakiil Shiinees ah oo ku eedeysan tacadiyada ka dhan ah muslimiinta waddankaasi ku nool. intii hore daawadayaal aad daawateen waa qaar ka mid ah qodobada warkeena habeenimo kuwooda ugu door karoon xilligani wixii ka dambeeyana u diyaar garooba hadduu alla qadaro warkii oo dhammaystiran oo aan idinla socodsiiyo anigoo ah Cabbaas Maxamed Nuur Xuseen. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalk ee Soomaaliya ayaa sheegay in cudurka COVID-19 uu saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha dalka Soomaaliya, isagoo sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka shaqeynayso sidii looga soo kaban lahaa dhaqaalaha saameynta uu u geystay cudurka COVID-19. Axmed Cumar Muuye ayaa warkan si aanba qaaday. wasiirka maaliyadda xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo maanta marti ku ahaa barnaamijka kulanka toddobaadka ee ka baxa warbaahinta qaranka ayaa looga hadlay saameynta dhaqaale uu ku yeeshay Soomaaliya cudurka coronavirus. wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa sheegay in dhaqaalaha Soomaaliya 30% uu hoos u dhacay, taas oo sabab u ah COVID-19 iyo doorka dowladda federaalka Soomaaliya ku bixisay xakameynta cudurkaasi. dhibaatada COVID-19 waa mid adduunka oo dhan saamaysay weeye. inaguna dee waaban marka horeba dhaqaalaheenu aad buu hooseeyey. dhaqaalaheenu oo soo kobcaya oo soo koraya oo buur yar soo faranaya ayaa COVID-19 nagu tiri. COVID-19 markaa waxay inoo laba arrimood bay inoo keentay. mid waxa weeye dhaqaalihii dadka soo gelayay ee wasaaradda soo gelayay ee dhaqaalihii cashuuraha la ururinayay inkamkii gudaha ka soo gelayay dakhligii ayaa yaraaday. sababta ay tahay dadka dakhligiisina wuu yaraaday, dadkii wax ururin lahaana lockdown bay galeen oo aqalada isku xidheen, wixii soo degayay way yaraadeen. sidaa daraaddeed dakhligiina soo gelay oo markii hore saa u socday ayaa saa noqday mar keliya. talabaad ay COVID-19 keentay waxa weeye dagaal inaan u diyaar garowno iska celino ayaa kharash u baahatay. marka iyadoo dakhligeena hoos u dhacay, iyadoo kharash zaadi lagu soo biiray, iyo iyadoo marka horeba aan iska hooseynay oo markaan damacno kharashkeena inaan iska bixino, hadday dad kalena kabi waayaan iskamayna bixin karay. dhanka kale wasiirka maaliyadda ayaa tilmaamay in dowladda federaalka Soomaaliya qorshe ballaaran ay ku bixisay in mushaarka shaqaalaha dowladda iyo ciidanka ay bil walba ay qaataan. sidaan anagu isleedahay in mushaare la bixin waayo ma dhici karto. in mushaare la bixin waayo waxa dadaal weyn loogu jiro waxa weeye la jideeyey. waxa weeye dadku shaqeeya in qaar kale la qoraaba loo baahan yahay maaragta, laakiin bal at least kuwa shaqeeya inuu qof waliba mushaarihiisa ku tashado oo uu ku tashado oo uu reerkiisa u sheego oo uu ku takifalo. kaas horta waxa weeyaan waa priority number 1. ama ciidamada ha noqoto, ama shaqaalaha kale ha noqoto, ama cuntada ciidanka ha noqoto, waxyaalaha awliyaadka ugu sarreeya ayay ka mid yihiin. marka iyaga horta shaki nagama gelin, waanan isku daynay meel kastaba waxaan ka keennay in mushaarada la bixiyo. wixii kale ee naga dhiman in markaa ay noo buuxiyaan international community ayay iyaguna naga aqbaleen. international community-ga saan kuu sheegay, World Bank-ka siyaalo badan buu noo caawiyaa. capacity building buu awal sii jiray dadka iyo magarasa khubaro kuu qoro, laakiin maanta wuxuu qayb ka yahay budget ayuu qayb ka yahay. budgetkana qayb kama noqdeen haddaan arrintii deen xafiiska la isla soo gaarin meel qayb kuma noqdeen. marka halkaasaan marayna waana fiican. ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa carabka ku dhuftay inay jiraan 70 milyan oo dollar oo hay-adaha Soomaaliya taageero ay ugu talagaleen in lagu caawiyo ganacsatada yaryar si shaqo abuur loogu sameeyo dadka si dhaqaalaha dalka kor loogu qaado. dhaqaaluhu ka samaysmaa. dhaqaaluhu hadduu ballaadho dadku shaqa helaya. dadku inay gidigo dowladda oo shaqa tagaana maaha. waa adduunyada kale dowladda oo shaqada loo hayaa waa 10% wey. waxa kaloo dhan waa dhaqaalaha dadka qayb galaya. maanta waxaa jira waxyaalo badan oo la wado
mashaariic fara badan oo wax ku oolo la wado dib u dhismo waddanka ayaa la wadaa commercial bankski baa la dhisayaa 70 milyan oo loogu talagalay baa jiray small businesska in la siiyo dadka in lacag yar la siiyo dabeetana ay ku soo noolaadaan shaqooyin baa waxaa ka abuurmaya mashaariicdan aan ka hadalay boqolaalka kuna shaqooyin baa ka abuurmaya ayadoo sidaa tahay haddana dowladda lafteedu skills bay u baahan tahay re-skilling wax la yidhaha baa la sameeya retooling oo la doonayo wasaaradaha qaar aan skills baa haysan baa jira oo aan xirfad lahayn oo xirfado u baahan baa jira oo dhaqaaliyahan u baahan oo accountants u baahan oo engineers u baahan engineerskana suuqay joogaan marka waxaan inaan labada iskelino dhaqaaliyo hoos nooga dhacay iyo dadkii oo shaqaalayn u baahan iyo wasaaradihii oo u baahan xirfadii ay u baahnaayeen aan hanahayn waxaasoo dhani waxyaalaha miiska madaxweynaha iyo miiska prime minister iyo kayga iyo cid walba saaran ayay tahay dhaqaalahanayna xukuma axmed cumar warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho dowladda Soomaaliya ayaa xoojinaysa amniga goobaha lagu qaadayo imtixaanaadka iyadoo u diyaarisay ku dhawaad 2,000 oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ah maxamed daahir degane ayaa warkan siyaanba qaadaya wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya afhayeenka ciidanka booliska dalka taliye ku-xigeenka laanta dambi baarista CID-da oo shir jireed maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxay sharaxaad guud ka bixiyeen hanaanka loo qorsheeyay bilaabashada imtixaanaadka ardayda Soomaaliyeed mudane cabdiraxmaan maxamuud cabdulle jaabiri oo ah wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sharaxaad guud ka bixiyay qaabka loo marayo imtixaanaadka iyo sidoo kale waxa uu mahad celin ballaaran u jeediyay laanta dambi baarista CID-da oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliya wixii bari ka bilowdo shaqa noo bilaabanaysa anaga iyo taliyaha iyo afhayeenkaba insha Allah tacaala inta imtixaanka socdana si joogtaan oo shaqeyn doona waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda oo runtii aan rabnaa halka inaan ka sheegno in imtixaanka runtii aad arday u badan sanadkan ay ka qayb qaadanayaan in dhaqaalaha imtixaanka ku baxay oo ka yimid dowladda Soomaaliyeed gaar ahaan wasaaradda maaliyadda marka halkaan waxaan rabnaa inaan uga mahad celino sida gaarka ah ee madaxda qaranka isaga xil saareen in ay waxbarashada ay ahmiyad gaar u siiyaan runtii waa ku mahadsan yihiin oo uga mahad celinaynaa maxaa yeelay annagoo og duruuf dhaqaale dalkan uu ku jiro iyo arrimaha amniga aad og tihiin waxaan naga mataqaana dadaalka loogu jiro haddana in waxbarashadeen waqti intaa leeg aan gelino dhaqaale intaa leeg aan gelino in madaxda qaranka ay ka qayb qaataan runtii waa uga mahad celinaynaa ugu dambeyn waxaan rabaa inaan kaga faa'iidaysto wacyigelintii ahayd in weli xanuunkii uu jirana in mataqaana la ilaaliyo taliska ciidanka booliska dowladda federaalka Soomaaliya iyaguna waxay shaaca ka qaadeen inay kaalin mugli ka qaadan doonaan ilaalinta imtixaanaadka iyagoo oo shaaca ka qaaday in ay dowladda federaalka Soomaaliya ugu tala gashay 2,000 oo askari in la ilaaliyo imtixaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaan annagana u diyaarinay ilaa 2,000 oo askar iyo saraakiil ciidanka booliska Soomaaliyeed ka tirsan oo iyaguna sugi doona ay xasiloonida waardiyeynta iyo ka shaqeynta iyo isla markaana daabulaadda agabka iyo nuxurka imtixaanka in la geeyo goobihii loogu talagalay oo si amni oo xasiloon loo geeyo saasoo kaleeto booliiska ka shaqeynaya 2,000 waa booliiska dowlad goboleedyada ka mid ah dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo booliiska dowladda federaalka ah oo iska kaashanaya sugidda imtixaankaas waxaan ummadda Soomaaliyeed rabaa iyo dhalinyarada imtixaanka gelaysa iyo kuwii kale ee qalqalka abuuri lahaa uga digaynaa in hay'adaha baarista dambiyada CID-da iyo dhammaan ciidamada qalabka sida ciidanka booliska Soomaaliyeed aanu u diyaarsanahay inaan ka hortagno wax walba oo lagu qalqalin gelin lahaa imtixaanka taliska ciidanka booliska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay tallaabo ka qaadi doonaan cid waliba oo loo arko inay caqabad ku tahay imtixaanaadka dalka isla markaasina ay barbagaan ka faafinayso imtixaanaadka dowladda federaalka Soomaaliya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo waliba maamulka gobolka Banaadir ayaa kulan dalxiis ah oo lagu dhiirigelinayo dalxiiska dalkeena Soomaaliya kaga qayb qaatay degmada Kaxda oo ka tirsan gobolka Banaadir mar kale saaxiibkay Maxamed Cabduqaadir Digane ha ku laabto warkan maamulka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir ayaa maanta soo bandhigay qaybaha dalxiiska ee degmadaasi iyadoo isla degmada Kaxda ee gobolka Banaadir kulan qadaha lagu sameeyay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Marwa Basma Caamir Shakeeti iyo gudoomiyaha maamulka degmada Kaxda ayaa iyaguna waxay ka warbixiyeen muhiimadda kulankan maanta loogu qabtay magaalada Muqdisho iyagoo soo dhaweeyay mas'uuliyiintii maanta ka soo qayb galay kulankaasi waxaan leeyahay aad iyo aad u mahadsantihiin sharaf bay noo tahay runtii hore looga sheekeeyey degmada Kaxda barnaamijkan xafladeen u fadhino waxaa waaye barnaamij aan ugu talagalnay inaan ku casuuno oo ugu talagalnay dalxiiska degmada Kaxda
oo baryahan runtii aad ugu soo badanaya gobolka banaadir guud ahaan soomaaliya annaguna aanu ahayn hormuud ama dadkii tusay in lagu dalxiisi karo soomaaliya ama gobolka banaadirba aanu ahayn dadkii tusay in lagu dalxiisi karo gobolka banaadir inuu leeyahay goob dalxiis ah ee degmada kaxda ay ugu horeyso in loo tegin dalka dibaddiisa dalxiis ee dalka gudihiisa uu leeyahay goobo lagu dalxiiso aadaan idinkaga mahad celinaynaa sida quruxda badan aad u soo bandhigteen dalxiisnimadiinii in booqasho maahane in la degay ee mudan tahay degmada kaxda agaasimaha dhinaca dalxiiska ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka soomaaliya farxiye samaan maxamed oo iyaduna ka hadashay kulankaasi ayaa waxay sheegtay in degmada kaxda habka ay u soo bandhigtay bilicda iyo qaybaha dalxiiska degmadaasi maamulkooda ay soo dhoweynayso dowladda federaalka soomaaliya taasina ay kaalin mugla uga geli karto tartanka dowladdu ay qabanayso dhowaan kaasi oo la qaban doono 20-ka bishan oo lagu tartansiinayo degmooyinka dalka dhinaca dalxiiska iyo horumarka laga sameeyey soomaaliya haddaan nahay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska waaxdeeda dalxiiska waa ku mahadsantihiin dhammaan bulshada degmada kaxda waxaa idinka mahad celinayaa qadadan mar labaad sida quruxda badan aad noogu casuunteen waa sax degmada kaxda waxaa waaye 17 degmo gobolka banaadir degmada ugu yar waana degmada ugu quruxda badan ugu bulshada quruxda badan sidoo kale wasiiru dowlaha wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdiraxmaan dheere ayaa isaguna shaaca ka qaaday degmada kaxda inay ka mid tahay goobaha dalxiiska gobolka banaadir taasina ay muujinayso kaalinta ay maamulka degmadaasi ka galeen dadaalka adag ee loo galay muujinta dalxiiska degmadaasi isagoo sheegay inay dowladda muhiimad gaara siin doonto dalxiiska dalka runtii waxay maanta noo tahay farxad aad u weyn inaan kala soo qayb galno xafladan aad ku muujinaysaan in degmada kaxda ay tahay degmooyinka ugu horeeya xagga dalxiiska meel dadka lagu soo dhoweyn karo oo qofka uu maanta markuu u baahdo maalmaha nasiinada meel uu ku soo nasan karo oo qaxwo ku soo cabi karo oo aad u qurux badan oo ay degmada leedahay oo laga mar dhowna soo booqan doono inaad nagu casuuntaan kuna muujisaan degmadu inay tahay degmo munaasab u ah in maxay ahayd ay ka qayb qaadato bilicda magaalada muqdisho wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee dowladda federaalka soomaaliya mudane aadan isaaq oo kulankaasi ka hadlay ayaa sheegay inay dowladda soomaaliya dhiirigelinayso degmooyinka gobolka banaadir ee sameeyey horumarka dhinaca dalxiiska soomaaliya jimcaysigeena hadda kadib waxay noqon doontaa degmada kaxda bunga iyo gaxwada iyo canjeerada aan usoo doonan doono kalimaad aan ku cabiro mahad celintiina ma garan karo waa mahadsantihiin si qurux badan anaa noo soo dhoweyseen sida ay sheegtay agaasima farxiya mar dhow waxaa la daafuri doonaa tartanka bilicda iyo quruxda degmooyinka dalka guud ahaan waan rajaynaa reer kaxda iyo guddoomiyahooda inay u diyaargaroobi doonaan waxa ay hayaanna ay keeni doonaan dowladda federaalka soomaaliya ayaa dhowaan ku dhawaaqday in la qaban doono 20-ka bishan tartan ballaaran oo loo sameynayo degmooyinka iyo gobollada dalka kuwaasi oo lagu tartansiinayo bilicda iyo qaybaha dalxiiska sida loo horumarinayo guud ahaan soomaaliya iyada oo tartankaasi uu noqon doono mid lagu kala saarayo degmooyinka dalka horumarka ay ka sameeyeen dhinaca dalxiiska soomaaliya maxamed daahir degane warbaahinta qaranka soomaaliyeed muqdisho maamulka dowladda hoose ee gaalkacyo ayaa maanta ku wareejiyey ciidanka isku dhafka ee gaalkacyo saldhigga cusub iyo weliba gaari loogu talagalay in ciidankaasi ay ku shaqeeyaan cabdirasaaq maxamed axmed wakiil wareedka warbaahinta qaranka ee magaalada gaalkacyo ayaa warkan soo diray maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa maanta ku wareejiyey ciidamada xasilinta booliiska degmada gaalkacyo saldhig ciidan booliis oo dhowaan laga hirgeliyey magaalada gaalkacyo ee gaari loogu talagalay inay ku shaqeeyaan ciidankaasi madasha wareejinta saldhigga iyo gaariga oo ay goobjoog ka ahaayeen taliya ku-xigeenka qaybta guud ee ciidanka booliiska federaalka galmudug gaashaanla sare maxamed nuur cali iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay duqa degmada gaalkacyo galmudug xisi yuusuf barre oo ka warbixiyey dadaalka loo galay hirgelinta xarunta booliis iyo gaariga loogu talagalay in loogu adeego isagoona ku wareejiyey saraakiisha ciidanka booliiska waxaan halkan ku wareejinayaa maanta oo aan rabaa inaan booliiska ku wareejiyo baabuurkan iyo saldhiggan aad arkaysaan oo dhammaystiran
agabkiisii iyo qalabkiisii ay u dhammaystiran yihiin runtii waa saldhiggii labaad oo 4 sano aan joogay aan meesha ka dhiso saldhigga Shabeel dhinaca shaqo dhisay oo operational hadda uu shaqaynayaa kana hadda shaqaynaya hadii la helmo saldhiggan magaciisa waxa la yiraahdaa saldhigga galbeed taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska galmudug gaashaanle sare maxamed nuur cali ayaa isna uga mahad celiyay maamulka degmada gaalkacyo garab istaaga ciidanka xasilinta booliiska gobolka mudug isagoo sidoo kalena sheegay in xarunta iyo gaariga maanta lagu wareejiyay ciidankaasi wax weyn ku soo kordhinayaan arrimaha sugidda amniga iyo adeegida bulshada inaan ka soo qayb galno wareejinta aaditaana saldhiggan booliiska iyo gaarigan aad gadaasheena yaalla oo in muddaa way socotay sidii lagu keeni lahaa oo muddo badan iyo waqti badan uu ku lumiyey maayirka degmadu waxaan leenahay horta marka ugu horeysa maada ay kaa gaarto maahan markii koowaad waa markii labaad oo saldhig booliis oo weliba mid uu asagu shakhsiyan tabarcaad u dhisay oo maskax iyo maalba geliyey uu booliiska ku wareejiyo kana waqti dheer ayuu geliyey iyo gaarigan aad arkaysaan waa mahadsan yahay maayirku laakiin intaa in ka badan ayaan uga fadhinaa inuu degmada ku soo kordhiyo saldhiggan ayaa isagu noqonaya kii labaad ee maamulka degmada gaalkacyo ee galmudug uu ku wareejiyo ciidanka xasilinta booliiska gobolka mudug oo ah ciidan ay ku midaysan yihiin dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug cabdirisaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo laba caruura ayaa u geeriyootay cudurka jadeecada 300 kalena tiro ku dhow waxaa lagula tacaalayaa xilligan isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Kismaayo inooga soo diyaariyay arrinkan aadan maxamed salaad aadan Kismaayo saraakiisha caafimaadka ee isbitaalka magaalada Kismaayo ayaa maanta walaac xooggan ka muujiyay xaaladda caruur aad u tiro badan oo uu soo ridinayo cudurka jadeecada kaas oo maalmihii u dambeeyay saameyn xooggan ku yeeshay dadka danyarta ah ee ku nool magaalada Kismaayo kaas oo cudurka jadeecadu uu markaa haleelay in ka badan 350 caruur ah oo uu ku dhacay cudurka jadeecada ayaa la jiifiyay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo iyaduna 24 saac inuu ka soo gudubnay laba caruur ay ugu geeriyoodeen isbitaalka weyn ee magaalada Kismaayo cudurkaasi jadeecada xog badan si aynu ugu ogaano ayaa waxaan booqannay isbitaalka magaalada Kismaayo waxaana halkaasi aan kula kulannay caruur aad u tiro badan oo la ildaran cudurkaasi agaasimaha isbitaalka magaalada Kismaayo Xuseen Sheekh Qaasim oo aan goobtaasi kula kulmay ayaa telefishinka qaranka ugu warbixiyay xaaladda iyo sidoo kale sida ay markaa ula tacaaleen dadkan uu soo ridanayo cudurkan jadeecada ee saameynta ku yeeshay dadka ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo sidoo kale deegaanada kale ee ka baxsan oo uu sheegay in aynay dadkaasi helin talaalkii loogu talagalay caruur fara badan baa isbitaalka la jiifiyey laga bilaabo bishii 3aad 356 canug baa qaybta jadeecada la jiifiyey muddadaas ilaahay xamdigii caruurtii intii badnayd way bogsadeen wax yaroo hadda ku jira meesha ood soo aragteen mooyeen 356 laba canug baa ka dhimatay isbitaalku dee adeegii ay u baahnaayeen ilmahaasi ayuu siiyaa dabeetana iyagoo caafimaad qabay baxaan marka dambe waxaa laakiin jirta xanuunkan inta badan wuxuu ka dhacayaa meelaha Kismaayo ka baxsan meel waxaa jira talaalka xitaa aan laga ogolayn oon caruurtii aynay talaal helin meelahaas dadka jooga dad iska danyara bay u badan yihiin uma dhib yara inay isbitaalka ilmihii xanuunsanaa keenaan waxaan wararka ku helaynaa caruur badan inay u dhimatay oo meelaha joogta walow hadda aan idin lenayn nambarka intaasabaa u dhintay caruurta inta badan uu soo rito cudurka jadeecada ayaa waxa ay ka yimaadaan deegaanada dhulka waqooyiga magaalada Kismaayo gaar ahaan kooxaha nabadiidka goobaha ay ka taliyaan kuwaasi aanay helin talaalkii loogu talagalay in cudurkaasi looga hortago maadaama dadka deegaanadaasi ku nool aanay gaari karin saraakiisha caafimaadka cabsi ay ka qabaan kooxahaasi awgeed waxaana sii kordhaya tirada dadka cudurkan uu soo ridinayo ee jadeecada haba u badnaadeen caruurta ee ku nool deegaanadaasi kuwaas oo maalmihii u dambeysay loo soo qaadayay isbitaalka guud ee magaalada Kismaayo aadan maxamed salaad raadiyaha telefishinka qaranka magaalada Kismaayo
ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata jaamacadda Madiina al-Munawwara ee ku taala boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa kaalmaha hore ee dhanka waxbarashada iyo weliba akhlaaqda wanaagsan ka galay jaamacadaasi. علي جامع علمي علي كوز وكيل وريد كورباهين تقرن كي ودن كبغرتوية السعودية عربية يا وركن سي أم بقالي. arday Soomaaliyeed oo fara badan ayaa wax ka barata jaamacadda Islaamiga ee Madiina al-Munawwara ee dalka Sacuudi Arabiya kuwaas oo ka kala yimid gudaha dalka Soomaaliya iyo dibadiisa iyadoo kulliyadaha hoos yimaada jaamacadaasi ay yihiin kulliyado lagu barto culuumta shariicada Islaamka, Quraanka Kariimka, axaadiista luqada Carabiga iyo kuwa kale. iyadoo kulliyadaha kalena lagu barto IT, engineering iyo sayniska iyo kuwa kale. sidaasina waxaa sheegay gudoomiyaha ardayda jaamacadda Islaamiga ee Madiina al-Munawwara mudane Maxamed Mustafa Sheekh Aadan. gudoomiyaha oo u warramay warbaahinta qaranka ee Soomaaliya ayaa waxaa kaloo uu intaasi raaciyay in jaamacadda Islaamiga ee Madiina al-Munawwara oo la aasaasay sanadkii 1960 ay guud ahaan wax ka bartaan arday ka kala timid caalamka oo ay ka mid tahay Soomaaliya. جامعة المدينة وحالة أساسي أملا فري سنة كن سدح بقول سديتني كودي أو تاريخ ذي هجري جاء وكوبيجان كن سجال بقول يلحدنكي وميلادي جاء جامعة وحالة أرضي أدو فربضان أو الدنيا دوران كوضع إماتي دولة أرضي أنا إنسان كجوجين ويرتهي دولة ده هاس أرضي الجامعة اللي جت وحاكمة ده دولة الصومالية جامعة الإسلامية كليات كذا أما فكرتيه ده waxay u qaybsamaan laba nooc kuwa sharci ah culumta shariicada islaamka lagu barto iyo kuwa maadiga lagu barto kuwa maadiga waxaa ka mid ah facultyga ama kuliyadda IT iyo engineering iyo science sidaas oo kale kuliyaadka sharciga ah kuliyadda shariica oo takhasus badan hoos imaanayo iyo kuliyadda dacwa usul diin oo sidaas oo kale takhasusyaal badan oo shariicada hoos imaanayo iyo kuliyadda xadiis oo xadiiskii culumtiis lagu barto iyo kuliyadda qur'aan oo qur'aankii culumtiis lagu barto iyo kuliyadda luqada carabiga oo lagu barto luqada carabiga iyo culumteeda iyo wixii oo dhan adabkii iyo balaaqadii iyo naxwadii wixii soo raaca iyo sarfiga iyo wixii la mid ah jaamacadda ardayda dhigata ee Soomaalida ee baasaboorka Soomaalida ku dhigata waa 90 arday ardayda Soomaalida inta way ka badan yihiin laakiin kuwa baasaboorka Soomaaliga ku dhigta waa 90 arday waxayna ka 90 kaas arday ee baasaboorka Soomaaliga waxay u kala qaybsamaan 62 arday oo baaj diyaarinaysa ama baaj dhigata iyo 4 arday oo macadka luqada carabiga ee jaamacadda ka horeeya ardayga aan luqada garanaynin oo soo maro gudoomiyaha ardayda jaamacadda Islaamiga ee Madiina al-Munawwara mudane Maxamed Mustafa Sheekh Aadan oo ka hadlayay kaalinta ardayda Soomaaliyeed ee kaga jiraan waxbarashada jaamacaddaasi ayaa cadeeyay ardayda Soomaalida jaamacadda dhigata jaamacadda Islaamiga waxay xagga daraasada waxay ugu jiraan kaalimaha hore ee ardayda ugu wanaagsan xagga akhlaaqda iyo aadaabta iyo cilmiga iyo dadaalkiisa ay ku jiraan taano dadka dhan wada og yihiin dadka ka baxay culimada macruufka ama mashhuuriinta ee jaamacadda Islaamiga ka baxay ee Soomaalida ragga ugu macruufsan waxaa ka mid ah Sheekh Umar Faaruq Ilaahay ha u naxariisto iyo Sheekh Maxamed Cabdi Umal iyo Sheekh Shibili iyo Sheekh Ali Wajiz oo mustashaarka madaxweyne farmaajo ah jaamacadda Islaamiga waxay qabataa maharajaan oo ama bandhig faneed oo sanadkii hal mar la qabto Soomaalidu ay ka qayb gashaa waxyaabaha lagu soo bandhigo waxaa ka mid ah dawlad kasta waxay soo bandhigtaa dhaqankeedii caadaadkii ay leeyihiin Soomaalidu waxay meesha ay soo bandhigto waxaa ka mid ah dharkooda ay xiranayaan oo dhaqanka ah iyo sidaas oo kale cuntooyinka iyo hidaha iyo dhaqanka iyo ciyaarihii iyo wixii la mid ah ay soo bandhigaan ardayda jaamacadda Islaamiga sanadkii waxay qabtaan hal kulan oo sagootina ardayda mutakharijiinta ama ardayda qalinjibisay lagu sagootiyo kulankaasna waxaa ka soo qayb gala Soomaalida oo dhan oo jaamacadda joogta kuwa baasaboorka kaliya ma ahane Soomaali oo meel kasta ka imaada ama ha ka imaado Mareykan ama Ingiriis ha ka imaado ama Yurub si guud ahaan iyo baasaboorka kuwa wataan Kenya ha wataan ama Djibouti ama Ethiopia ardayda jaamacadda dhigata ee Soomaalida ah way isku xiran yihiin si guud ahaan baasaboor kasta ha wataan wayna iska warahayaan saharo u soo sheegana waa waxay ka mid yihiin ardayda ugu wanaagsan xagga waxbarashada iyo wixii la mid ah علي جامع علمي علي كوز راجع تلفزيون قرقة صوماليا سعودي أرابيا waxaa sii kordhaya ficilada islaam naceebka ee lagula kaco muslimiinta ku nool dalalka Yurub. Norway waxay ka mid tahay wadamada ay ka dhacaan falalkaasi qaabdarada badan ee lagula kaco muslimiinta halkaasi ku nool. warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa halkaasi inooga soo diyaariyay Xasan Saciid Raasta. Soomaaliyeed ayaa
ka badan 26 sano kadib ka soo guuray guriga ay ka deganaayeen magaalada Albarum oo ah magaalo 2 saacadood u jirta caasimadda dalka Norway. Faadimo Bulxan iyo 6 carruur oo ay dhashay ayaa u adkeysan waayay midab naceebka sanadada isdaba joogga oo kula kacay qoys caddaan oo deris la ahaayeen. dhacdadan oo dalka Norway si aad looga hadlayo haatan ayaan Faadimo Bulxan iyo qoyskeedu ku soo guuray guri ku yaala magaalada Oslo ku booqday waxa iga warantay xaaladaha walaaca iyo cabsida soo wajahday qoyskeeda. alwaax bay ila dhaceen dhabarkii meelahaan igu dhudhufteen waxaan isku daynaa albaabkii inaan xirno albaabkii wax badan ku dagaalnay gabadhayda farta albaabka kaga dhaco ka gooyay dagaalkii rafashadii ka bacda aniga markii dambe kab shaytirsku kabaha oo seefta lagu ciyaaro way igu soo tuureen madax halkaan iga dhufteen naftayga waa wareeray markaas waa jug baa iga gaartay aad madaxa aakhirkii waxaan ku guuleysanay inaan albaabka xirano oo aan albaabkii markii dambe anaga aan xirano waa dhacdadii ugu dambeysay oo dhacday isniinta hadda la soo dhaafay laakiin dhibaatadeen wax badan ay soo socotay wax badan bay ama nacaayeen ama midab una tuseen kala sooc cunsurnimo badan oo muujiyeen arrintaas iskuulada ogaa gaarsiiyey kamuunka kood meesha xukumaan gaarsiiyey booliiska ayagu dayliba maalin walba ogaayeen markasta wax dhacaan booliiska la socodsiinayay dadka badan oo waxa ogaa aan ku dhex jiray socialka aan la ahay baa wada ogaa adigu arrintaas wax badan ay soo socotay aakhirkii hadda saana dhacday markii dacada waxaan go'aansan inaan meeshaan ka guuro saasaan uga soo guuray magaalada Elbrum oo ahayd gurigeygii labaad oo aan intaa kusoo deganaa 26 sano deganaa ilmahayga inta badan ku dhalay gabadhaan ku dhalay baa ku dhashay marka ay noo soo gelayaan waxay leeyihiin ma noolaanaysaan waa idin dilaynaa wadankan ma joogi kartaan kuma noolaan kartaan dad yoomin madoow dharka xun qabo saamanaaya markaas hadda koor waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah inay na soo weerareen ciyaalku markasta caadi inay nacaayaan dhibaateeyaan bay ahaan jirtay wiil yar oo dhalay bay maalintaas dhibaato iga geysteen ciyaalkaas marka wax reerkaas waxaan isku dayay inaan gurigooda iyo meesha degan helo si aan ilmahooda dhibka ay nagu hayaan ugu sheego waalidka ilmahaas dhalay عدي وين بهالكود مالتي دمبي waxaa dhacday inay cunugayga iga dileen waxaan ka soo qabtay inaan soo qabtaan damcay baaskiil ka soo qaatay baaskiilkii gudahan soo galiyay anoo raba inaan helo waalidkii ilmahan dhalay ay yimaadaan dhahan maxay ilmahayga baaskiilka uga qaadatay ama ila hadlaan baaskiilkii markaan qaaday waxaa noo yimid baaskiilkii meel baan ku xiray waxaa yimid odaygii habartii intaas ciyaar la socda iyagoo tiradii ka batay aniga dad normal marina ilmahayga gudahan galay anaa soo baxay waxaan tusay inaan si fiican ula hadlo anoo qoslaayo faraxsan aan waalidka si fiican wax u fahansiyo la hadlo markaan soo baxayba oo aan salaanta simiyay odaygii wuxuu bilaabay inuu caayo neegar yaab lidriid soon calaamada oo rasistaha naasiga inuu siiyo qoyskan cadaanka ee sababay in qoyskan Soomaaliyeed ay ka soo guuraan magaalada ay deganaayeen 26 sano ayaa la sheegay in dacwad haatan ay ku socoto booliiskuna ay wadaan baaritaan waxa kaloo la sheegay in dacwadan oo soo socotay muddo 3 sano hore loogu xukumay ninkan dib u geystay qoyskan Soomaaliyeed muddo 45 maalmood ah حسن سعيد راستا راديها iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed Oslo Norway dawladda hoose ee degmada Buuhoodle ayaa maanta waxa ay suuqa xoolaha ka bilowday canshuurtii degmadaasi in laga qaado sidoo ku soo waramayo wariyaheena magaaladaasi dowladda hoose ee degmada Buuhoodle ee Puntland ayaa maanta cashuur ururintii waxa ay ka bilowday seelada xoolaha ee magaalada Buuhoodle waxaana ugu horeyntii halka ka hadlay oo ka warbixiyay cashuur ururintan maanta laga bilaabay degmada Buuhoodle gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Buuhoodle ee Puntland Shawr Cabdillaahi Maxamed waalena isku tashtaan waa cashuur iyagu dhexdooda ay iska bilaabaan boonooyinkiina iyo waraaqihii dowladana aanu ku wareejino neef kastana lacagta ku soo hagaagta ay bixinayaan taasna waxaanu ogeysiinaynaa hay'adaha tii ugu dambeysay ee 60 xabe ee soolarka ahayd noo keentay ee aanu imika seelada xoolaha labada xabe uga taagnay waxaanu hay'adaha ka codsanaynaa dadka reer Buuhoodle ee isku tashaday lacagtooda cashuurta aanu uga bilownay inay laamiyo soo dhisaan inay soolaro intii hore kuwa ka badan ay soo siiyaan dowladaha Soomaaliyeed deegaankan waa deegaan aad uga dib dhacay 18 gobol ee Soomaaliya hase ahaatee maanta ay dadku isku dhiiradeen inay sameeyaan isku tashigaas oo ka bilaabmay seelada xoolaha
waanu uga mahadcelinaynaa. waa maalintii cashuurta ay ka dhaqaajinayeen deegaanadooda, ha ahaato sayladda, ha ahaato saribadda, ha ahaato dukaamada, ha ahaato kaantaroolada, ha ahaato qaadwalayaasha, ha ahaato shirkadaha, intaba diyaar ayay u yihiin. cashuurtiina way bilaabeen, waanaan uga mahadcelinaynaa. sayladiina maantay ka bilaabatay, waxaana ku wareejinaynaa boonada u horeysa maayirka degmada Buuhoodle inuu warqadda u horeeya uu u jaro sayladda, neefka u horeeya inuu boonadiisa isagu gacantiisa ku gooyo ayaanu ugu soo dhaweynaynaa. inaan maanta sayladii ka bilowno cashuurtii ariga waanu bilownay, dadkuna waa soo dhaweeyeen, dilaalintoo dhanna waa taageereen, waa nala shaqeeyeen. boonadii koowaad ayaanu iminka jaraynaa haddii ahaydmo ka codsanaa dadka sharafta leh ee deegaanka sidaan cashuurta u bilownay, tii sayladda iyo tii geela iyo tii ariga iyo tii kawaanada dhammaan waa bilownay. dhinaca kale waxaa iyaguna halkaa ka hadlay oo soo dhoweeyey cashuur ururintan maanta laga bilaabay magaalada Buuhoodle qaar ka mid a dadka ka ganacsada xoolaha. qofku adduunka horta waxaa ugu xun markaad ka faa'iidaysan weydo jaaniskaaga iyo hantidaada iyo maskaxdaada markaad ka faa'iidaysan weydo. waxaa loo baahan yahay cashuuraha ha la ururiyo, dhaqaalaha ha la kobciyo, si loo noolaan lahaa wax loo qabsan lahaa la raadiyo. waa okay wey. shacabka reer Buuhoodle waxaa la horta cashuurta bixiya. haddaan nahay xoolaqatar, haddaan nahay qolada seerada joogtay dilaalinta daacad baanu nahay dad run. waxaanu jecelahay dadka dalka iyo dadka wax u qabtaan aad iyo aad ugu aqbalayaan oo aan rabnaa. haddaad run noo sheegaysaan waanu ila shaqaynaynaa. waxaanu isla garanay markaanu muddo badan habsan ahayn waanu horumarka ka habsaanay. waxa la yidhi caana daatayba dabadood la qabay. waxaanu maanta isla garanay inaanu iscashuuro oo aanu cashuurtayada aanu ku tashanno. waxaanu cashuuraynaa adhigii, waxaanu cashuuraynaa guryaha, waxaanu cashuuraynaa ganacsiga, waxaanu cashuuraynaa qaadka, waxaanu cashuuraynaa kontaroolada. intaasoo dhan waa isla qaadanay. soomaalidu waxay ku maamaadaa haddii dayax la waayo xidigaha lagu gudaa. shirkadaha iyo xawaaladahaanu cashuuraynaa. maxamed cali bile, warbaahinta qaranka, Buuhoodle. aad buu u mahadsan yahay wakiil wareedka warbaahinta qaranka ee degmada Buuhoodle Maxamed Cali Bile ayuu kaasi ahaa. welina waxaa daawanaysaan daawadayaal warka telefishinka qaranka Soomaaliyeed oo kaga imaanaya xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho uu ku leeyahay. iminkana akhbaaraadka dibadda. Mareykanka ayaa cunuqabatayn ku soo rogay saraakiil Shiineys ah oo uu ku eedeeyay tacadiyada ka dhan ah muslimiinta ku nool waddanka Shiinaha. Cabshakuur Cali Axmed ayaa warkan si aanba qaadaya. maraykanku waxa uu shaaciyey in cunaqabateen ay ku soo rogeen saraakiil ka soo jeeda Shiinaha oo uu ku eedeeyey in tacadiye ka dhan ah xuquuqda aadanaha ay u geysteen muslimiinta ku nool gobolka Xinjiang ee waddanka Shiinaha. waxaa saraakiishan ka mid ah hogaamiyaha xisbiga shuuciga ah ee gobolka Xinjiang Jin Qing iyo sidoo kale 3 sargaal oo kale. waa saraakiishii ugu horreeyay oo Shiineys ah oo maraykanku cunaqabateen ku soo rogo. xaaladda muslimiinta laga tirada badan yahay ee waddanka Shiinaha ayaa sii xumaanaysay sanadihii dambe, waxaana jiray tacdiyo ay u geysanayeen saraakiisha waddanka Shiinaha ee jooga gobollada ay muslimiintaasi ku nool yihiin. Shiinuhu waxa uu beeniyey in wax dhibaato ah lagu hayo muslimiinta ku nool gobolka Uthar oo ah meesha ugu badan ee tacdiyadu ay ka dhacaan. guud ahaanba daawadayaal warkii habeenimo ee telefishinka qaranka Soomaaliyeed ayaa intaasi ku eg. warka waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cabbaas Maxamed Nuur Xuseen ah. intay igala qayb qaadatay iyo anigaba waxaan idin leenahay warkan warka xigeentaan ku kulmi doono sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.